أنا وأحمد أحدي قبل كسرت أو نهار كعيب الدنيا قبل كسرت أنا وتليا صعدال قبل كسرت مدح مالية قبل كسرت وحنا كحدين إنه ورعد وصحن وكل سابسان صعد هذا الدلك dadweynaha oo cilaamin inuu dadweynaha Jabuuti aan xad ka wada leenahay iyadoo la gaaray waqtigii kulaylaha waxaan halkan ka cadeynay oo dadweynaha Jabuuti u sheegayna in aan u qaabili doono waji furan iyo gacmo furan iyadoo cashuurta ku waajibtay ay tahay $30 oo qura caruuraha ay wataan wixii 15 jir ka yar laguma laha cashuurina kuma waajibin propagandadu way iska badan tahay waxaan iclaaminaynaa oo kale in caruurta qaangaadhka ka weyn 15 jir wixii ka weyn ay soo qaadan karaan dokumenti saxa oo ah iskoolaarati waxa loo yaqaan ama certificate of in ardayga students dadweynaha Jabuuti waxaan sheegay in aan xaaladii hore ka bedelay goobta gobolka Sanaag ee loo yaqaan in aan ay la kulmi doonaan dhul qabow dhul baraf leh cilmi fara badan leh oo qaabkii hore bedelay gacmo furan ku soo dhaweyn dadka darawaliinta iyo gawaagaadiidkana waxaan jeclaan lahaa in halkan ay dadku ka kireystaan intay dib haysato ee lagu murmayo haddii laga maarmi waayana waan barbar taagnaana dadka si aanay dhibaato u soo gaadhin waxaan kaloo ku booginayaa dadka reer Jabuuti inaanay aqbalin kutulukutaanka aan gacmo furan ku soo dhaweynayno labada xuduudna ay yihiin qaar gacmaha isqabsaday caruurahooda iyo dadkooda iyo dadka culusba loo taxgelin doono wixii naafa ah iyo wixii kale ee waaweyn wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku wareejin doonaa madaxa maaliyadda oo isna aan gacan saar wada leenahay waxaan halkan u nimi inaanu caddayno kutulukutaanta iyo beenta la isla dhex marayo ee waxba kama jiraanka ah ee laga sheegayo looyacdo taasoo ah in la leeyahay caruurtii iyo haddii ku xumaayo dadka xanuunsanaya iyo haddii ku xumaayo dadka curyaanka iyo intaba lacag baa laga qaadaya waxba kama jiraan annagu waxaan wax ka qaadaynaa waxa weeyaan wixii aan xanuunsanayn ee bukinaya bareero lagu sigin iyo wixii haddii ku xumaayo aan naafo ahayn iyo qofka 15 jir ka yar inta midna wax kama qaado waana free inaguna waan ugu imi sharci wasaasa immigrationku uu nagu hagayay waxaanuna haddaan wasaaradda maaliyadda nahay waxaan sharciga u daba fadhinaa muxuu ahaayey immigrationka waa immigrationka dadku ku horeynaya annagana uu nagu dambeynaya sidaa darteed warkaa kutulukutaanta waxaan leeyahay dadka reer Jabuuti dadka reer Somaliland waa been waa kutulukutaan waxba kama jiraan weey qofka iskuularka ah waxba kama qaadno ee cadaynta saxsiita qofka 15 jir ka yar ee cadayntii dhalashadiisa sita waxba kama qaadno qofka waayeelka ah ee aan socon karaynin ee garbaha la hayo waxba kama qaadno ee da'da qofka curyaanka ah ama naafada ah ama haddii ku xugmaayo dantu hayso ee liita waxba kama qaadno waxaan wax ka qaadnaa inta u dhaxaysa baan ka qaadnaa waxa kale oo jirta Soomaalidu waxa wanaagsan mala kama heshay boqolkiiba divided by 3 marka loo qaybiyo marka boqolkiiba 3 meelood loo qaybiyo hal meel waxa laga yaabaa in shaqaalaha goobta jooga iyo dadka goobta jooga ay ka bixiyaan markay nafooda u arkaan oo ay shaqada qabtaan oo fududeeyaan qof kasta oo juwan ka goosta wasaaradda maaliyadda ee looyacdo iyo immigration ee xagaa baxa ee taga muxuu ahaayey Somaliland waxa aanu u tixgelinaa 3 bilood saddex bilood kadib hadduu soo noqdo bisha saddexaad markay dhammaato dib uu soo galaa suuqa laga qaado xalee walaalayaal waa la soo dhaweynaya suuqaasi baa la soo dhaweynaya
كما جيران إن كسري تمر كجير كقفك كير لغمرة بين قفك وايد كالغمرة الدعاء جبوبي لغمرة محي توي أرضية يرينا محي توي سيدتا اسمه ورقداس اسمه سيدتا حبك ما قابله حلاها أنت الصبح ده هو أنت وحياة بين اللي شيء وحبك كما جيران صدح بلود نوع مقنعتان صدح بلود نحن اللي كما قالوا كذي حلاها هاي dadka waan soo dhaweynaynaa beenta la idin sheegay waxa kama jiraan cashuurtu waxay ku waajibto baan ka qaadnaa dadkana boqolkii iyo boqol haday gaadiidkay raacayaan tahay waan soo dhaweynaynaa haday tahay wadada marayaan waan soo dhaweynaynaa haday tahay maxay hayto facility-ga loo qabanayo ay u baahan yihiin shaqaalaha ugu baahan yihiin oo dhan saddex hay'adood meesha ka wada shaqeynaya waxa weeyaan way u qabanayaan babacdi waana la taakuleynaya waxa leeyahay soo dhawaad wadankiini waxa leeyahay wadankiini labaad Somaliland kusoo dhawaada waana idinku qaabilaynaa waana boqolkiiba boqol waxa arki doontaan idinka oo warar kale sheegi doona marka amarta wax allaale wax ka jiraan propagandada iyo beenta qaadanina assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh intaas kusoo dhawaysay waxa ku wareejinayaa gudoomiyaha gobolka oo inoo soo gulaalin doona bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين marka hore waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta qaranka ee gobolka u fadhida taliyaha socdaalka maamulaha maaliyadda iyo mas'uuliyiinta kale waan salaamayaa mar labaad waxaan raacayaa hadallada halkan ay ka soo jeediyeen oo ah iclaan in dadka loo sheego waxa xaqiiqada ah loona sheego waxa propagandada ah ee la tuuray ee aanay waxba ka jirin ummadda reer Jabuuti iyo dadka reer Somaliland waa dad walaalo ah waa dad isku mid ah laba aqal oo walaalo ah laba nin oo walaalo ah ninna xagga yaalo ninna xagga yaalo runtii waa dad ehel isku wada ah milaygan waxaynu ognahay inuu yahay milaygii kulaylaha ahaa dhinacaas mataqaanay magaalooyinka Hargeysa Boorama Gabiile waqtigii loo xagaa baxiyay dadka Jabuuti ka soo xagaa baxay oo ah dadka yagi balse ay jirto sanadahan dambe digtoonaan fara badan oo loogu danaynayo dadweynaha si loo sugo ammaankooda in controlka la adkeeyay taasoo aanu ka wada soconno mas'uuliyiinta dhinaca Jabuuti aanu ka wada soconno aanu ka wada shaqeynayno waxaan ku darayaa iclaankii ay madaxdani mas'uuliyiintan sheegeen dadka soo baxaya waxa loo baahan yahay reer Jabuuti marka ay halkan loo yacda ka talaabayaan in ay galaan registerka oo is register gareeyaan waxyaabaha lagu waajibiyay visa-ga yar ah waa qofka mas'uulka waa kuwa idin sheegay oo kuwa sheegay ee madaxdii cadeeyay caruur lagama qaaday ardayna lagama qaaday qof mataqaanaa da'ana lagama qaaday qof curyaana lagama qaaday maxaa loo baahan inay intaba la register gareeyo marka la siiso marka la baxayo lacagta la qaadiyo marka la soo noqonayo lacag lama qaadiyo marka la soo noqonayo maxaa la eegayaa registerkiisi baa la eegayaa inuu halkan maray daatadiisi baa la eegayaa shalay uu halkan maray maanta marka uu mari karaa uu noqon karaa وحق جبوتي ونوسي دين كرا هدي وكادو أنت هالكن ونا ريجستر كنكلي ما مرة يدي هالكن وضرب for security أن نبتقليه ده تعلو سمعيني سين نبتقليه ده رواد كيو ده كبحياي وإني مران ويس ريجستر كريان وبريتهم مركي صوص عضان أي شيئان وقد يريد يقول ستايد هذان شريبان مرين ويمكن وقتي حاجة جواد موضوع نقولنا ريجستر كانوا نقولنا taasi waxay noo noqonaysaa mid aynu ku ilaalino security-yeena dadkuna waa inay sharcigooga sitaan sharci la'aan ma soconayso qof bila sharci ma soconayo Jabuuti madaxda Jabuutina saasaan heshiis ku nahay xukuumadda Somalilandna saasay mataqaanay boqol qaadatay iyadoo taa looga jeedo in lagu xaqiijiyo nabadgelyada oo aanay soo dhexmari karin dadka bahaloobay ee dhiiga dadku u xalaaloobay ee shayaadiintii inaanay dadkeena noo eg inaanay dadkeena kusoo dhexmuuqanin waxaan leenahay
wixii intaa ka baxsan ee propaganda ah ee la tuurayo waxba kama jiraan waxa kale in dadka u sheegeen baabuurta in halkan ka kireystaan oo fiican qofkii xidhiidh la leeyahay isagu toos baabuur ula sii heshiinaya telefoonku la heshiinaya waa gooni waxaan qolada baabuurta la faraynaa mas-uuliyad baa saaran milaygani waa milaygii adkaa ee gaadhiga laga ilaalinayay gaadhi aanan hagaagsanayn in dad maatiya la saaro waanu aragnay baabuur dhexda fadhiisata waxay nagu hayaan culays waxay nagu hayaan naxdin waa milay qofku aanu haraad in yar meel joogi karin baabuurka aan hagaagsanayn hay-adaha ay khusayso waxaan faraynaa inay ka eegaan dadka oo baabuur aan hagaagsanayn aan dadka la ogolaanin inuu ku rakaabsado u dabeedna halka hor yar la fadhiisto taasna baabuurta sidaas samaysan waxaa qabsan doonta ganaax intay baabuurkan hagaagsanayn dadka lacag ka qaataan ay halka hor yar berisna mataqaana la fadhiistaan baabuurka waa la ganaaxi doonaa waxna la marin doonaa mataqaana ciqaab wixii uu mutaysto ninka baabuurkani waa inuu baabuurkiisa hubo wuxuu qaadaya waa maati waa shacab waa dadkeennii waa inuu ilaaliyaa baabuurkiisa waa inuu adkaystaa oo uu hubo boqolkiiba mataqaana 70-80 waa inuu baabuurka hubo wixii kale ay ku yimaado waa xagga rabbi ka yimaado waa gooni weeyaan waa iman karaan laakiin waa inuu boqolkiiba boqol uu gaarigiisa check-gareeyaa huba taasna intaasaan ka farayaa waxaan leeyahay wixii soo baxaya dadka xagga iyaga oo soo baxaya bilaa sharciga waxaan leeyahay safaaradda soo mara soo qaata warqadda go home-ka ya okay waxaad samaynaysaa waxaan leeyahay dadka oon ku adkaynaya mar kasta inay sharciga soo qaataan aanay ogaadaan inaan lacag laga qaadaynin wixii caruura wixii mataqaanaayey da-a wixii mataqaanaayey xanuunsanaya ama curyaana inaan waxba lagu lahayn ardayduna ay soo qaataan iskuulaarteedi waxaan isku ognahay waddada lagu marayna sharcigu yahay iyo inuu isregister gareeyo dad baa xaggan Ethiopia mari doona بريتولين دو طبعاً هذا كسو طلابان بحاجة كذا كسو مرة تاسي واحد نقول إنسان إن دبلو عليو الله يرحمه هالكلمة قرأ كسو بعدين كسو قلدك تاو حلنا يروحي هالك كسو مرة يوم وجو إن ترجستر ككشو أنت وقع العليا والسلامتي